بسم الله الرحمن الرحيم وفاطمة علي يا برنامج كيني تحنها عمرتا ما أنت وحني وذا شيكة وحير وعجيب ما شاء الله أنبوك أخريي شيكة لا صحكوا صابسن تهاي وحال يري وحي كان على إنجليزكا سكوتلاند كان على وحال يري مرة مالين وحد على ويلير أيام مير وحكون حي قد وعرا ميربور وكل حي مركزته ونا يعني مال قطر وبهاي مركز وحدها وريا الساعد وريا مشان إيجا بحيو ماشي وحليري وقيلنا وريا مقلايو ماشي وكل مرة كالي ساعدة بس ما كده بوحليري نين ماشي مرايو وبرليه نين كيا مركا ويمد وو أركي ويل كان إنه مال قطر كسوية هاي بس وحسمي ويل كيو بدبادية ماشي أيو كسر بحيي بس ويلكي marka uu iska baxay ninkana gurigiisa iska aaday maalintii labaad ayaa waxaan yiri ninkii beerleyda gurigiisa iska joogo ayuu wuxuu maqlay iridoo la soo garaacay bas iridii markuu furay ayaa waxay irida taagan nin qurux badan xiran oo dad madaxda ka dhashay yani oo yani labiskiisa ninkii marka oo miskiinka ahaa beerleyda ahaa iridii markuu furxu leeyahay bal maanta ninkan wuxuu ka soo doonay gaarigiisa gaari qurux badan oo wataa ninka ma yaqaano marka asagoo isleeyahay maskaxdiisa leeyahay ninkan maanta muxuu ka rabaa ayaa ninkii u jawaabay wuxuu ku yiri warniyahow wali ka sheegay waan ku raadinayay aad u mahadsan tahay markaasuu maxaan ku sameeyay wuxuu yiri wiilkayga ayaa ii badbaadisay shalay wiilkii aad meesha ka soo buurtay meeshii qarkii oo buurtii oo ka dhacayay aad ka badbaadisay meesha caradii iyo buurtii wiilkaygu ahay aad u mahadsan tahay marka wuxuu yiri maxaan ku qabtaa lacagna marka uu siiyo wuxuu yiri lacagtan waa abaalkaagi aad u mahadsan tahay bas ninkii wuxuu ku yiri aniga meel baan socday qof wiil yar oo ooynayo rafaadsanaan waxaan arkay marka aniga waan badbaadiyay marka adiga waxaan ka rabo ma leeyahay bas ninkii wuxuu yiri maya abaalgudkaaga weeyaan ahsaankii aad ii samaysay ayaan adna ku gudaaya adaninkii uu ka diiday waxaa yiri marka gurigii saas u fiiriyay wuxuu arkay guri iska miskiin laakiin xagga camal wuxuu arkay wiil yar baa taagan bas wuu fiiriyay wuxuu ku yiri walaalo wuxuu yiri adiga wuxuu yiri wiilkayga ii badbaadisay maanta adiga haddaad meesha imaan lahayn wiilkayga iga imaan lahay bal at least anigana maanta ahsaan aan ku sameeyo wiilkaaga aan ka xeeyo bas waxaa yiri wiilkii wuxuu yiri wiilkii markaas uu yiri maxaa ka wadaa wuxuu yiri wiilkaaga iskool baan ku geynayaa aniga aan ka xeeyo iskoolku waxaan geynayaa meesha ugu tacliin fiican aan geynayaa ana mas'uul ka noqonayo bas wuxuu yiri ninkii wuu ogolaaday wiilkii soo kaxeeyay marka waxaa yiri balantii uu ka balan qaaday wuu oofiyay wiilkii wuxuu noqday wiil wax yaqaano wax uu bartay markii dambe wuxuu noqday dhaqaatiirta uu ingiriiska ugu caansan waliba wuxuu ku caan ahay dadka wax baaran uu ahay surgiga dadka sameeyo oo waxyaalaha marka waxaa la yiri ninkaas adduunku uu abaalguday yani wuxuu soo saaray antibioticada la qaato penicillinka oo waagi hore waxaa la yiri qofka infection ku dhaco uu dhiman jiray laakiin ninkaas dartiisa waxaa la yiri antibioticaas ayuu soo saaray aad uu ilaahay يعني dadkii oo wuxuu ka dhigay yani gacantiisu ilaahay dadka daawo ugu saaray marka iyo waxa la dhahaa sheeko kale waxa la yiri wiilkii oo waagi maxay ahayd oo aabiisa badbaadiyay waxa la yiri asaga xataa infection ayuu sababaha ku dhacay dhakhtarkii wuxuu u qoray daawadan antibiotica oo penicillinka u qoray markaas daawadii ayuu ku badbaado ilaahay ku caafiyo marka waxaad arkaysaa cilmiga haddaad baratid ilaahay naftaadana waa isku anfacaysaa dadkaaga iyo wadankaaga iyo dadka oo dhanna waad anfacaysaa khayraani rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi